كل صدق سنتين doorashadii way soo socotay muddo badan baa la naawilay doorashadii guud ahaan markaan soo koobo si nabadgelyo ku soo dhamaatay annagoo qorshaanay ka duulayna dhammaan waxaan geynay markii horeba diyaar garowga aan sameynay wuxuu ahaa dhammaan goobahaas oo dhan ciidan geynay meeshii dhammaan wax laga filayo dhan annagoo geynay kadibna meelihii kale iyagana guldalooyinka oo dhan baan daboolnay xuduudda ilaa meel kasta si ay doorashada si nabadgelyo noogu dhacdo runtii doorashadii si fiican bay shalay codaynta u dhacday oo shalay codaynta dhacday shalay 12 subaxnimo la bilaabay ilaa 12 maqribnimo ee ka dambeeyay way iska dhamaatay codbixintii baa la xalay tirnay ilaa hadda waa lagu jiray marka runtii doorashadii markaan si kooban soo koobo haba yaraatee wax ka dhacay ma jirto ilaa qabale ilaa degmo ilaa gobol ilaa heer degan dhammaan goob doorashooyinka oo dhan si nabadgelya runtii ayay kusoo dhamaadeen haba yaraatee wax la tirin karo carqaladahoo ka dhacay oo eega la tirin karo leeyahay wax weyn oo saas u dhacay ma jiro totally ma jiro dhammaan nabadgelya kusoo dhamaadeen wax dhibaato ay haba yaraatee ma jirto sidaan ogsoonahay doorashooyinka hore waad ogeydin iyo tan dee farqi weyn baa u dhacay hadda kahor isbedelka ka hor ururo hubeysan baa jiray oo xilligaa meel kasta taagna hadda laakiin ma jiro ururo hubeysan oo maanta deegaanka ka jira ma jiro waxay kaloo kaga duwan tahay doorashada mid dimuqraadi ah oo la tartamayaba ahayd oo xisbiyada gadaashka waxay laakiin haddana dad iyaguna madax bannaan baa tartamaya badan oo aad baa loogu tartamayay taas ayaa farqigaasa u dhexeeya hadda deegaanku markaad fiiriso isbedel baa ka dhacay isbedelkaa jira dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka iyo dhammaan dhaqdhaqaaqii oo dhan waa iska firi hadda ka hor xaaladda jirta kolleyba dee anigu hadda dee waad ka dheragsantihiin markaas farqi weyn baa u dhexeeya oo hadda ka hor dad yow hubeysan baa jira hadda laakiin hubeysanayaashii dadkii hadda ka hor carqaladii dhibaatada gurihii hadda ma jiraan inkastoo haddana ay jiraan dee argagixisada oo sida dee dowladaha jaarka annaha ay ka dhaqdhaqaaqaan ay dee falal badan ay samayn karaan hadday fursad helaan fursaddan runtii annaga waa la diidnay marka farqi weyn baa u dhexeeya runtii aad bay hadda u fiican tahay doorashada nabadgelyo markaad fiirisana dee iyadoon ahaynba deegaanada kale markii loo firiyo iyo deegaankeenna maanta deegaanka ugu nabadgelyo fiican weyn ma deegaankeena markaad fiiriso waxaan mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha amniga qeybyada kala gedisan sida booliska liyu booliska maleeshiyada dhammaan horta hay-adaha amniga si gaar aan ugu mahadcelinayaa dadaalka ay sameeyeen run ahaantii habeen iyo maalin ayna seexanin inta ay doorashadu jirtay iyo diyaar garowgii ka horreeyey ololayaashii ka horreeyey loolankii adkaa ee ka jiray wixii aan soo maray oo dhan dadaalka hay-adaha amniga gaar ahaan saddexda hay-adood ee isku dhafan sida booliska liyu booliska maleeshiyada run ahaantii si gaaraan iyagoo ugu mahadceliya wayna mahadsan yihiin inkastoo waajibaadkoodu yahay haddana juhdigii iyo dheeraadka ay geliyeen aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan mas-uuliyiinta iyaguna nala hagaysa iyaguna ee habeenii maalin nala joogay aad baan ugu mahadcelinayaa talabaad waxaa mahad ballaaran u soo jeedinayaa shacabka dowlad deegaanka soomaalida oo nabad jecel oo nabad jecelka lagu yaqaano shacabkaasoo hirgeliyay maanta hay-adaha amnigu inay maanta taabageliyaan doorashada si dimuqraadi oo nabadgelya inay ku dhacdo shacabkii runtii taabageliyey ee habeenii maalin hooy hiliyo hoobna la garab taagnaa ayaan mahad celinayaa waad ogtahay hay-adaha amnigu gaar ahaan booliska qaybihiisa kala gedisan ama booliska haato ama liyu booliska haato ama maleeshiyada haato waad ogtahay iyaga la-aantood hadduuna shacabkuna garab taagnayn annaga keliyata horta waxma qaban karo shacabku haddana iyaga nabadda shacabka iyagaa nabadda ilaashaday iyagaa doorashada inay nabad ku maanta ka lefay iyagaa wanaagga dhan ay maanta deegaanku lagu naaloonay iyagaa sameeyey marka dhammaan shacab weynaha deegaanka soomaalida iyo dhammaan hay-adii ka qayb qaatay hay-ada amniga ka qayb qaatay doorashada maanta si dimuqraadi oo nabadgelya inay ku dhacdo dhammaantood waan mahad celinayaa alxamdulilah maantana doorashadii si fiican bay noogu dhacday bixintii waxaa loola tirinayay seejooyinka ama sanaaduuqda insha allah maanta waxaa lagu soo celin doonaa goobihii loogu talagalay sandaradii loogu talagalay ee mashaakilka ayaa la keeni doonaa insha allah lagu soo xarayn doonaa iyagana ilaa inta natiijada lagu dhawaaqi doona insha allah goobahaas waa la ilaalin doonaa ciidanku goobihiisii joogi doonaa nabadgelya runtii waan sii adkeynaa insha allah hadda